wararkan ayaa qayb ka ah barnaamijka Nibra ee ka baxa telefishinka Misr al-Hayat waxaa idin soo gudbi doona anigoo ah Said Ali Cabdullaahi Salaad ayaa idin soo gudbi doona afka ama luqadda Soomaaliga warar ku baxo waxaad nagala soo doontiin maalin kasta oo Jimco ah wararka aan ugu horeyno ee maanta idin akhri doona ayaa waxaa ka mid ah Aswaan oo marti gelinaysa shirka nabadda iyo barwaaqada ee Afrika madasha dhalinyarada caalamka oo lagu qaban doono magaalada loo tamashleynta tago ee Sharm el-Sheikh dowladda Soomaaliya iyo midowga Afrika oo ka wada hadlaya sidii Soomaaliya looga cafin lahaa deynta daawadayaal haatan waxaad ku soo dhawaataan wararkii oo faahfaahsan Aswaan oo marti gelinaysa shirka nabadda iyo barwaaqada waarta ee Afrika waxaa shalay lagu soo gabagabeeyay shir ka soconayay magaalada Aswaan oo ka mid ah magaalooyinka Masar shir lagu korfeenayay nabadda iyo barwaaqada waarta shirkani ayaa qabsoomay 11 ilaa 12 bishan aan ku jirno ee December waxaana shir gudoominayay madaxweynaha dalkani Masar Abdul Fattah al-Sisi shirkani ayaa ku soo aaday xilli madaxweynaha dalkani oo hayo madaxnimada ururka midowga Afrika waxa ayna Masar dadaalo ku bixinaysaa sidii ay u wanaajin lahayd xiriirka kala dhaxeeya dalalka kale ee Afrika iyo in la taageero sidii loo taageeri lahaa nabadda iyo horumarka madasha dhalinyarada caalamka ayaa lagu qabanayaa magaalada Sharm el-Sheikh ee loo tamashleynta tago waxaa maalinimada bari ah ka furmi doona howlihii ugu horeeyay ee madasha dhalinyarada adduunka ee uu soo abaabulay madaxweynaha dalkani Masar Abdul Fattah al-Sisi madashani ayaa socon doonta 14 ilaa 17 bishan aan ku jirno ee December kana qabsoomaya magaalada Sharm el-Sheikh madashani ayaa kulmi doonta dhalinyaro badan oo ka kala yimid daafaha dunida waxayna isku weydaarsan doonaan aragtidooda iyo sidii loo wajihi lahaa dhibaatooyinka ka dhashay isbeddelka cimilada dowladda Soomaaliya iyo midowga Yurub oo ka wada hadlaya deyn cafinta Soomaaliya kulan u dhaxeeyay dowladda Soomaaliya iyo midowga Yurub loogana hadlayay sidii deymaha looga cafin lahaa Soomaaliya ayaa ka dhacay magaalada madaxda Soomaaliya ee Muqdisho ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaare Khayre iyo wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Beele ayaa hogaaminayay halka safiirka midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya oo ka matalayay midowga Yurub kulankani ayaa qayb ka ahaa kulamada joogtada ah ee looga hadlayo horumarinta iyo wada shaqeynta ka dhaxaysa labada dhinac kulankani ayaa sidoo kale waxaa lagu soo hadal qaaday dimuqraadiyadda federaaleynta doorashooyinka xuquuqda aadanaha iyo doorka haweenka ay ku leeyihiin siyaasadda dhageystayaal waa anigoo ah Said Ali Cabdullaahi Salaad idin socodsiinaya barnaamijka Nibra wararka ku baxayay tan iyo inta ku kulmi doono isbuuca kale waxaan kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo Karibuni sana watazamaji wetu katika kipindi cha habari cha kwanza kwa lugha za Kiafrika nchini Misri.